السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو هذا Somali Youth Scholars. هدي نوع سبتاهي مركي لوات سودو ينكولين هاي يوتيوب channel كان هو يوتيوب channel وطلقلنا نانكو عابنو لنت Soomaaliyeed waxyaaba maanta aad ku baahanyiin oo kamid ah sida loo xaristo deeqada waxbarasho iyo waxyaabaha kale la xiriira maanta insha Allah mowduuca muhiim ah ka hadli doona oo ku saabsan sida loo xaristo jaamacadaha ku yaala dalka UK يعني si aad ugu helayd yani admission warqad aqbalaad. Alright, and okay inshallah sidaan hore idinku sheegay maanta mowduucan wuxuu ku saabsanaan doonaa sida aad u dalban lahayd aad u xareysan lahayd jaamacadaha ku yaala dalka Ingiriiska UK si aad ugu helayd yani admission warqad aqbalaad. videogan dabcan wuxuu quseeyaa videogan u dambeeyay oo aan uga hadlay deeqda waxbarasho Chevening scholarships. deeqdaas waxbarasho waxaan يعني uu sharxay si fiican videoga hore dabcan aan dareemi karaa dad badan ma aysan daawan waxa waaye isla videoga waxyaabii aan ku sharxay haddana dad badan ku soo weydiinaya arkaysa marka waxa su'aalaha fiican hadaa rabtid hidankaaga jirto inaad heshid waxaani waxa laga baahanyaa u dadaasho waqtigeeda gelisid ina cajiska iska qaadid aad yani u wanaagsantahay marka waxyaabo 10 daqiiqo ugu horeeyaan ugu hadlay isla haddana maysan daawanin email ku soo diray kuleeyin waxa jiro sida loo sameyn karo video ugu hadlay dabcan video ugu dheeray ilaa hal saac soconay laakiin adiga hadii hami kaaga jiro waxaan sheegan arabtid waxa laga baahan inaa waqtigiisa gelisid yani sheegan warta Soomaana dadaalkiisa laga helo yani hadii dadaalkiisa laga heli waayo ana qof ma eedi kartid هذا إسقساري. anyway يعني أنك صلاون لنك سام صلاون موضوع إن مانتا وحن رأي فيديو نحوق سيا يعني جامعة هذا سلوا ضلبنا يعني إن شاء الله إذا تصدقنا يعني scholarship كوا حواي scholarship كاسي Chevening scholarship كوا بوحسني سافوم كاسي في online هنا بوحني سا وعكاية بين 6 جامعات إن فوم كاسي كدرتي at least 6 jaamacad yani ina warqad aqbalaadkiisa 6 jaamacad ay ka baahan marka qolada scholarship ka iyaga kuma soo dhameynaa yani inay baxan jaamacad admission kaaga ma soo qaadeen waxa laga baahan yahay adiga inaad tagtid jaamacada aad dalbatid warqada admission aad soo qaadid qolada scholarship ka u keentid marka waxaan hore ku dhahay 100% scholarship ka inay guuleysay waxa ku xiran admission هدايشت يعني وحوالي 50-50 هنا تقولي 6 كونتران كحكت لكن admission نميستي scholarship فون كيسكلية بسوادرت وحبكو مترادي كوسو بحذاتا كوسيان scholarship كadmission هذه سنة جامعات وحبكو قبل كرتمل scholarship so إن شاء الله ما أنت صفي عن هذا إنتو صدونا هالكاني سيدا وحريسا لهيد أدوها لهيد admission وضدا عمر لهيد إن شاء الله then markood waxaan booqan doonaa website ki qolada scholarship ka oo ay Chevening chevening.org this one markaad website ka booqatid waxa waaye wadadii meeshii marnaya mari doonaa then country wadankeena Ingiliino meeshan Soomaaliya waxaan doonaynaa waxay scholarship then research waxaan dib ugu laabanaya yani formkii aan soo buuxinay dib ugu laabanayna meeshaas ayaa rabaa inaan wax ka apply gareyno then apply de alright apply markaa dhaadid wixii kaaga baahan emailkii iyo passwordkii formka ku buuxisay iyo kaaga baahan halkan then emailkii aan gelinayna alright waan gashanay passwordkeena iyo emailkeena
then application sidaan uu eegay ani maan dirin application ka yani tusaale ayuu ahay form kani yani idinka video si idinku u sharaxo dartiisa form kan u diyaari so waxa ku dhufanaysaa in progress application haduu in progress uu ku yahay yani aadan wali dirin haduu submitted uu halkan uu ku yahay submit ku dhufo oo meeshii aad ku dhufatay kasii gal and then in progress application meeshaan ku dhufanayna then open the then waxay maataa section kan ay ku qoran application information. Alright, ani hadda waxa way saddex jaamacada waxaan saddexna jaamacadayaan admission ka soo mesela tan waxa way yes admission ka sayaan oo conditional offer conditional offer waxa way handada soo weydiin way jireen video horna ku sheegay condition waxa way yani isku admission ka warqada way ku siiyeen laakiin warqada jira ay ka baahin in soo dirtid ay ka baahin kamida mesela passportka ilooda baan dirin and maybe warqada shahaada English ka kaarin IELTS TOEFL baan dirin marka waxyaabaas camal ay ku xirayaan conditional haday ku siiyaan offer yani warqada admission oo conditional offer haday ku siiyaan waa sidaas laakiin unconditional waxa way yani wixii loo dirtay warqadaha hadin complete way haystaan unconditional rejected alone waa rejected yani waxa way خلاص waxa way waa ku diin so anyway meesha intaan galin personal application information marka imaad section kan then waxa imaata course finder meeshaan ku dhufo meeshaan safe and preferred marka course finder ay imaatid waxa raadina kuliyada rabo yani waxa rabo inaa barto meeshaan kale aniga waxa rabo masterkay inaan ka diyaariyo accounting and finance ayaan rabaa then UK English inta ka sirta yani all region yani gobol walba oo English ka dalka UK ayaan rabaa then research ready okay kuliyadan rabi jaamacadaha bixin inuu noo soo saaray jida University of Aberdeen University oo jaamacadaha oo dhan Aston University Bangor University of Bath Birmingham City University jaamacadaha dhan wuu noo soo saaray sidoo kale wuxuu ku tusayay meeshani qolada scholarship ka jaamacadaha xiriir hadii ay leeyihiin mesela jaamacadan Bangor University iyo qolada scholarship ka xiriir wada leeyihiin Chevening Partner xiriir wada leeyihiin jaamacadan Aston University xiriir ma lahan jaamacadan xiriir ma University of Aberdeen xiriir lama lahan jaamacada qolada scholarship ka xiriir lama laakiin waa apply gareyn kartaa yani waxba iskama galin waa apply gareyn kartaa waa booqan kartaa soo fahmi wax problem lahan xaqa u leedina apply gareys mesela jaamacadan Aberdeen University school department hal mar booqano accept then waxa baranaysa maxay yihiin this one right postgraduate master or postgraduate are the same thing postgraduate degree ku dhufanaysa de marka postgraduate degree ku dhufatay waxa rabtay inaad baratid accounting and finance ay rabay inaad barto meeshaan uu ku soo saaray iska aqri meeshaan duration 12 bil waaye ilaa iyo 24 bil yani hal sano ilaa 2 sano inta u dhaxayso full time or part time labada boo helaysa hadii full time laga baahan qolada full time ka baahan scholarship ka xiga bilaabaysid on campus learning online iska ilaali inuu yahay location ku yaalo Aberdeen hawa adiga Scotland xuduuda saar James Scotland ku taala meelaas waa laakiin waa dalka UK so hada information badan ka siirtid more information
then haddaad markaa xogta fiican aa heshid xogta dhan aa ka heshid jaamacadda then waxaa leedahay apply now then apply online. hadda marayo inaan jaamacaddan apply garey tusaale ahaan aan idin siiyo naga bixi waxaa noo soo celisaa jaamacadihii dib masala adiga marka hal jaamacad inaa apply gareysidna sameynin yani waxaad apply gareysay ilaa 5 jaamacadood 4 jaamacadood 6 jaamacadood inta yani waqtigaaga uu gaari karo apply garey laga yaabaa in jaamacaddan abadin reject kusoo siiso Bangalore University inay kusoo aqbasho so scan critical marka adiga isku day inaad jaamacado badan apply gareysid at least waxa mida ku soo baxayso mida halisa. Alright waxaan fiirinaynaa jaamacaddan hadda ay leedahay xiriirka qolada scholarship-ka xiriir isleeyin Bangalore University. Alright wax siyaabahan oo dhan waa booqan kartaa institute website-ka inaad booqatid institute profile-kooda school department profile-ka isla meeshi then institute website-kooda balnigay website jaamacaddan apply gareynayna tagayna. Alright then postgraduate thought study waxaan u baahnaa postgraduate yani undergraduate mar yani bachelor marna xarna master degree then kursooyinka natus dimension natus then meeshaan karaadi accounting finance accounting and finance. Alright one helnay accounting and finance undergraduate waa iskiilal undergraduate marna yani undergraduate waxa waa bachelor degree level ko jaamacad accounting and finance undergraduate degree sidoo kale accounting and finance or third masters ninkan u baahan waa midkan hal sano waa full time so harta toosina oo apply gareysid interide then xogtana waa dhashay location ku yaal Bangalore Allah full time waa hal sano master then waxaa leedahay apply now bismillah then waxaa imaataa qaybtaani international apply now adii waxaa tahay international student yani arday ka imaanaya dalka dibadiisa then section kana leedahay section kanimo then section ka marka imaadid waxaa jiro waxyaabahan oo dhan ay sidoo kale iska akhrisid jiraan hal waxaa jirto aan rabaa inaan idin ogeysiiyo oo postgraduate noogu dhufo marka koowaad then waxaa ku dhufataa by online application portal noogu dhufo meeshaan ka apply gareyn doon by portal application waxaa ka horeeyo country specific information wadamadeena dalka Soomaaliya ku jira waa ka fiirnayna haddii isugu jiro problem laan isweynin waxay meeshaan kugu dhayn we welcome applications from prospective students from all countries of the world. We try to provide as much detailed information as possible, but if the place you resided in is not listed below, please contact us. Yani waxaan meeshaan ku wada qoraan dalalkan oo dhan haddii soo gudana yani dalka ku dhalatay aad joogtid hadda fadlan emailkan naga soo xiriir yani macnaheedu ma ahan ma apply gareyn kartid yani jumlada meeshaan ku qoran from prospective students from all countries of the world yani application walbo codsi walbo ay aqbalayaan oo dirsan karta problemna laakiin wadanka haduu meeshaan ku jirin email u dir sidoo kale yani inaad dalkaas ka socoto sheeg yani barnaamijka u socotid ina scholarship ka saaxareystay qolada bixin doonto waxbarashadaada inay dadka siin chivney scholarship email u dir xog fiican u dir then send it yani u dir waxa wax problem la iigaan ku dhig emailka noo soo dir xogtaada so sarjana waa fahantay qaybtan then back nagu celi then
waxaa imaanaynaa qaybtaani oo online application portal. meeshaan waa meesha aan ka bilaabi doono shaqadeena. apply to Bangor, hadda xareys yani scholarship jaamacadani admission dalbo. apply aan leenahay maadaama aanan email hore aanan u haysanin aanan gelin, waxaan naga baahan inaan sign up aan sameeyno. meeshaan hadda account cusub aan sameysano. sign up aan leenahay, emailkeena geli. emailkeena waxa waaye alright, emailkay password waa gelinay. then email aan noo soo dhici doono confirm your email address. alright, emailku noo soo dhacay. then linkigan ku dhuf. okay, emailka markaa confirm garaysid meeshaan imaanayna. emailkii passwordkaan sameeyna aan gelinayna meeshaan. okay, log in de. alright, and waxawaaye waan gelin login waan dhahnay. waxaan ugu baahan yahay inaan buuxino waxaan yeelan personal details, degree program, additional information, contact, education history, professional experience, language ability, finance studies, visa, waxyaabahan dhan inaan buuxino ugu baahan yahay. marka waxana wax aad u culus maahan, waa wax aad u fudud, qof walba sameyn karo oo buuxin karo. soo isku day inaad buuxisid. yani jaamacadaha dhan waa hal system oo isku mid. waxaan jaamacadahan Cambridge, Oxford, Birmingham, Aston Villa University, waxaasoo dhan jaamacadahaasoo dhan systemka waa isku system. waxba kala ma dugno, yani design-ka iyo qaabka ku kala duwan yahay laakiin application-ka waa isku sidii. marka jaamacadan keli ani sabab apply gareynayna aragtid tambili keligeed ha apply gareyn, yani ha isdhihin yani ma aqaan si loo apply gareyn. waa isku system. jaamacadaha sidaan hadda ku sheegay wadadan oo kale gal systemka website-dooda booqo, meelaha laga buuxiyo sidaan aan ku sheegay hadda wadadaas mar waxaba wax problem markiis. marka midaan tusaale ka qaado sidaan wadada mari doon marka buuxinayna sida buuxin doon. jaamacad walban intaan lagu weydiin admission marka laga rabo, yani admission marka buuxsanaysid arbid halahan in laga buuxiyo. anyway, aan bilowno personal details aan ku bilowno. alright, title, master, waxaad dooranaysid adiga given name. soo meelahan calaamada guduudka saaran like waxa waa waajib inaan buuxino. mesela meesha calaamad guduud ma saaran oo qolan baahan, yani waa optional, waa ka tagi karnaa. or given name keyga Abdullahi. family name waxaa sameynaysaa magacaaga ugu dambeeya gelin. waxaa sameynaya magacaaga misalan Cabdullahi Liida, abi waxa la Cali ka soo qad, abuga waxa la maybe Yusuf. then given name ka waxa gelinaysaa meeshaan Cabdullahi, abi magaciisa magaca abuga inta gelinaya, yani sida passport-ka kugu qoran yahay. enter your family name in full as it appears in your passport. sida passport-ka kugu qoran yani geli meeshan. marka maadaama abi Cali la dhaho, abuga Yusuf la dhaho, bas yani Cabdullahi Cali Yusuf ayaa leedahay. waa fahanti sarjana midan wax micna ma lahan, iska daa. previous name is surname, preferred name magaca durbidiis, middle names. marka full name ka intuu sheeg yani Cabdullahi Cali Yusuf leedahay enough. marka waxaan kale ha gelin oo yani waxyaabo ka qaldan iska ilaali. then goormee dhalatay, waqtiga dhashay maybe August 5 1999. gender kan ahay male, nationality Somalia. then passport ka geli B 008754. then passport number marka gelisid waqtiga uu dhacay passport number sax ma passport waxa uu tusaalaan meeshan u gelinayo.
passport waqtigu ka dhacayo March 5 2026 iga dhici doona. واجبنا معنا باسبور يعني ناقص لكن جيل باسبور عمله مهم ما ده يسد وجرو بوحي. country of birth ودن كودشته Somalian كودشه Somali Republic. واو Republic. authentic ما عندنا Somali no. other white background black or British other black background. authentic Arab no. Somali authentic محنا عرب ما نيا وجا حواي I don't know مقرنا يكوري عربنا والله dad kana badana authentic markay ma nagula daro ani black ma bagalna Somali black ma nagula daro yani markay maato other black background maya other white background yeah يعني dadka caada Somali cadana loo dira markay maato article ajriya oo jaamacadan California I think California University jaamacadas article qortay jir ta jaamacada waa ark website keeda Somali markay maato authentic waxaan u dirtaa other white background يعني عربنا نوما درتو مدو نوما درتو so of course waxaa aniga other white background nugli I'm sorry saxabto waa ka xumay yani hadii fikrad kale ku jirto wax kale adiga isleeda way jiraan gasho anna laakiin other white background anday enough arab ma bishnayn all right safe day okay program ka imo postgraduate arna anaga then postgraduate no wudfo qaybtan postgraduate de course adartid meeshan gali accounting and finance. This is what I want. Full time I raba waqtiga rabtid ina bilaabtid marka meeshan ka dooro sidoo kale waxaa sameeyay website-ka Chivney Scholarship booqo waxaa fiirsaa timetable ay jiro waqtiga uu natiijooyin soo baxayo waqtiga uu resultiga loo siina waqtiga fiisaha waqtigaas waqtiyadana isku qiimay marka waqtiga isleeda waa munaasib ku tawaabixi kartaa waa ka dhigin kartaa ka dhiga marka then maybe waxaan dhahay 22 anytime ay ka dhigan kartaa scholarship waqtiga rabaan ku siinaan iyo dadkan yani hada admission jaamacada kishid qolada scholarship kan ku siiyaan waqtiga aad ku balantina bilowdid ablaaw kartaa yani anytime lacagtaada loo siinaa so maybe September adena 2022 ila 23 inta u dhaxayso add de all right continue de then additional information section can are you currently Bangor University student or have you applied to Bangor University or studied Bangor University previously maya يعني هذا waxaad yani arday ka tirsan jaamacadan Bangor University miyatay or have you applied to Bangor University or studied maya meeshan jawaabtan mayda do you have any disability يعني wax disability ma leedahay yani xanuun gaar ma jira adiga ku gaara yani gacan il wax meel laga haysto ma jiraan maya and during the period of your proposed study will you be registered simultaneous for any other higher education qualification either Bangor or elsewhere يعني during your period of study will you be registered يعني انت xilliga waxbarashada ku socoto mesela jaamacada admission ay soo tagtay jaamacada iyadoo ku socoto hadana yani wax kala martaan si birto yani meel kale institute kale marjeene marka ma yani jaamacada masterkiina ka dhigto saaro hadafka oo maanan meesha waa honalas have you lived in UK
continuously with the exception of holiday period since birthday. maya sidoo kale haddii jirtaan hadde. Okay, meesha waxay leeyahay where have you been residents during the last 10 years? Please provide the country you have lived in together with the last. يعني 10 سنة ugu dambeeyay wadanka ku nooleed wax yar xog naga sii. يعني Soomaaliya ku noolay meesha ku koray anything like waxa ratid inaad dhahayd ku qoray. يعني wax badan kaagan baan hal jumlo ku filantay. So save ده. Then contact wadanka country Somalia. Okay, building dhismay waxaas iyadana muhiim lahan. Address line, address gurigiina maxaa waaye mesela ka soo qaad Taleex kilometer 4 street number 12. Address kii sidaan oo just example city Mogadishu. sidaan rajeyna waa fahanteen internet meelaha calaamada guduudka muhiimka ah ka buuxi. laakiin aniga waxaan tusaale sida loo buuxinayo foonkoodada Amaris bisan ku tusaay. marka adiga oo scholarship ka xareysanayo hami weyn kale fadlan si taxadir leh waxyaabaan u aqri u buuxi. macna aniga waxaan sameynaa adigana buubsiskaas iska daa. Okay, waxaan imaan education history and professional qualification. history-gaagi waxbarashadaadii. then institute-ka ka soo baxay muxuu ahay as it appears on your certificate or transcript. institute-ka waxa meesha ka soo baxay muxuu ahay waxaan ka soo baxay Mogadishu University. Mogadishu University. ayaan ka soo baxay country Somalia. Title waxaan ka soo baxay fadlan yani foonkii hore Chivin waxa ku soo qoray maybe waxaan dhahay waxaan soo dhameeyay jaamacad Banaadir waxaan soo bartay agriculture soo bartay waxyaabahaas ku qoran. then wixii foomkaas ku qortay inta aad ku soo qortay meeshaas ku qor. yani ha isku qasmin yani waxyaabo qalad ah is qoran. أنا ركتو صالحنا كاسينو يا ميشن تايتل وحن كصوبرت محمد جامعة مقدشو وحن صوبرته finance هي صوبرته. alright, grade is achieved expected grade كمحين وحيابا grade is achieved وحيابا لبحاس كسو قدبت محو هاي undergraduate كا يعني وحنا صوبرت finance كان GB هدو كو قرنيه وحاوا كو قرن 3 point maybe 80 3 point something 3 points وحش هذا كو قرن maybe 90% Y maybe 80% Y وحكو قرن so maybe 90 عنده course attended قرمي وقت قبل جامعة سبتمبر بلاوي لو كوني توني تضودي no تونيو لحدي وقت قدمين وحواي in July 2020 عندمي then date qualification award expectation nothing وحيوان كتق ميدان marka waxa qorta jaamacada ka soo baxday wadanku uu ku yaal jaamacadaasi waxa soo bartay finance ayaan soo bartay dhibcaha oo ku soo gudubtay xilliga jaamacadaas bilowday xilliga dhameysay intaas muhiimad save de soo u jeedina meesha soonayna calaamad cagaar si maroos. Okay, education history and professional qualification meeshaan waa buuxin continue de then professional experience employment history
waxyaabihii shaqooyinka waxyaabaha soo qabata ee meesha naga baahan sidoo kaleeto employment waxaan ka soo shaqeeyay jaamacadda Muqdisho aan ka soo shaqeeyay as teacher university wait a minute Mogadishu University waxaan ahay macallin teacher inkastoo teacher loo isticmaalay jaamacad dateska goormuu ahay September 2017 June ilaa iyo 2021 aan ka shaqeynaa yani ilaa hadda details of responsibilities and duties hadii yani waxyaabo responsibility yani waxa waajib meeshas waxa ka qaban jirtay waxa sameyn jirtay waxa dhigi jirtay xog fiican meeshan ka bixi ku qoraalay laakiin waajibku ma askeetay kartaa save and add continue hadii aragtid inay wax kala jiraan oo ku dari kartaa meel kale ka soo shaqeysa add ayaa leedahay hadii aysan jirin continue ka sii soconina is your first language English طبعا ما هي Somalian luqadeen ka wad English miya xamis maya alright IELTS wixii ka baahan yihiin طبعا iska akhri meeshan laakiin waajib ma radina meeshan ku buuxis then meeshan waxay leeyahay have you completed an English language test hadii aad gashay oo shahaado haystid haade hadii aad laakiin gashay yani shahaado aadan wali hasuuysata haade kadana haysanin ma haysto ma yaalay then English gartid marka English test gartida meeshan ku qoray IELTS aan raba testiga waqtiga gali doontida inta ku qoraysa bisha taariikhda 2022 يعني waqtiga bilaawda jaamacadda waa waqtigaas ka yani waqtigaas waqti inuu diyaar ku ahaado jaamacadda marka tagaysid waxa way ku siinay admission laakiin marka jaamacadda tagaysid waxa laga baahinaa yani si 10 u bilaawd in warqad IELTS examkaas ay gashid oo shahaadiisa ay istida laga baahin then save ayaa dhihina qaybta oo isla fahanaysa umanayna is your first language English ma yaraahne have you completed an English language test يعني واحد انجليش هذا تيست اجش مجرى يعني كومبليته ما يعني مهستو مرتين امتحان كينا قشيد مركا ها امتحان كاس مقيس IELTS وقتها التاريخ لا جليست ماشي قري وخلاص جامعة هذا المهم اسكم يعني واجب معهم alright save مركا لهاد then continue علينا هاي then finance how will you finance your studies so meeshaan marka ku qoraysa scholarship I'm looking for a full scholarship sponsored scholarship banker university advice student loan marka I'm looking for a full scholarship let me wait meeshaan na iska akhrino this means that you require a full scholarship in order to meet the cost of tuition fee leaving please note that Bangalore University is unable to offer full scholarship this means that you have a secured or applied for a scholarship yeah then wait a minute yeah then waxa aniga la rabo aad dooranay marka waxa meesha ka dooranaysa scholarship de name of the scholarship Chevening scholarship horno soo apply gareysa then Chevening de give details of the amount of the award full coverage يعني واحد إني بدي بحنان full scholarship يعني tuition fee full مركب واحد لذا full coverage have you been awarded this funding have you been awarded يعني ملوسي يعني ماشان willing مسين لكن I am willing ورجعنا مركب ما يده so do you require an offer for admission from Bangalore University to apply for the funding yes do you require miya u baahanta yani warqad admission offer ما يعني جامعة مو باهنتي سياد
scholarship kan aad weyshid marka waxay aad u wanaagsan tahay marka apply gareynaysa jaamacadaha xiriir kala leh scholarship boqorada scholarship markay xiriir wada leeyihiin aad ay u wanaagsan tahay marka tixgelin ku siinayaan wadanka ka imaatay dadka soo apply gareyn tiradooda marka jaaniska inuu fiicnaado laga yaabo Soomaali badan ma apply gareynaysa video-na ma daawadaan marka waxa waay xogna ma raadiyaan dad yar ay jiro wax raadsado waxaasan ahel marka waxa daa u baahan dadaalkiisa geli hadafkiisa sameey marka scholarship waxa waay dad fahansan dad aad u yar Soomaali fahansan jira dadkaasaan waxa waay ka faa'iideysto soo isku day inaa wax badan raadsid marka wax noloshaan tartiib lagu keenay ma jiro bas waxa abaad wasiirka oo waxbarashada iyo dib malaan oo idana meel kale ay wax ka sugaysid anyway markii meeshaan la dhameeno save day and continue then international visa do you need a student visa to study in UK waxa u baahan tahay yani visa oo yani dalku gal miyaa u baahan tahay alright are you currently enrolled a course in UK haddana yani waxa ka bartaa yani UK maya have you previously studied in UK wili yani UK yani wax ma ku baratay maya have you ever been refused a visa to enter UK wili visa ma lagu diiday yani aad ku soo gashay dalka UK maya has your registration on any course of study in UK has been suspended or discontinued at any time maya save and continue de alright meeshaan waxaan ugu baahan yahay inaa iska taxdirno waxa meeshaan ugu baahan CV inaad leeyahay yani waa CV wax weyn ma waxa uu magacaagii meesha addresska digintay iskuulada soo dhameysay shaqooyinka soo qabatay warqad aw ku soo qortay yani waadahan aw soo qortay dan PDF aw bedesho malaas xog kale yani wax ka baxsan maan inta soo malaas alright please upload a copy of your passport meeshaan passport keena noqol raba required oo loo baahan yahay meeshaan CV ga saar jana required ma ahan yani waajib ma ahan laakiin iska geli then upload a personal statement alright meeshaan fadlan scholarship ka hadaami kale inaa heshid meeshaan personal statement of purpose as a part of this application يعني muhiimad weyn u yahay scholarship ka dadka qiimeena wax kale ma fiirnayaan personal statement ka yeeran in aqriyaan so a personal statement should detail your skills your experience and your reasons for applying for this particular program how it will contribute to your career plan and ambitions for the future so one page ayaa ka dhigaysa oo A4 marka screenshot waxa ka qaado fadlan personal statement gani si fiican iska qor writing skills kaaga haduu xun yahay dad kale u geyso ka caawiyaan academic writing loo baahan yahay private mowduuca risk waxa ka soo barataan iskuulada English Islam raw academic English loo baahan so dada ku caabiyo jiraan dad u geyso then upload education history documentiyada transcriptyada meeshan geli fadlan and upload evidence of English language ability in addition to any English test you have provided and hadii ay jiraan yani waxyaabo shahaado in English ah haysatid hadii jiraan iska geli yani hada waajib maan saa u jeedid laakiin way ka baahan jaamacad marka tagtid hadow waajib ku noqon doonta in exam ka gashid laakiin ku siinayaan admission ka wuxuu baa lagu siinaa hada lagu martaabanayo yani English way ka baahan yihiin laakiin shahaado in English hadii jiraan haystid fadlan geli bar shahaadooyinkaas geli iska geli wax problem ah soo kale upload reference waxa way professorada jaamacada meeshaan akhri please upload an academic reference letter of recommendation from your current institute or the most recent institute at which you studied jaamacada hadda dhiganaysid mise aad soo dhigatay
oo aad dhameysay ayaa laga baahan inaad reference letter recommendation letter ka soo qaaday yani waajib way yani igana waajib way inay ku siiyaan yani waxa wax caadi ah waa sharci ah inay jaamacadda ay bixiso ardayda ay siiso dabcan Soomaali waxa way ku dhibaan ardayda lacag aan ka gataan marka diinkaaga haduu jiro diinkaaga la xiriir warqadaas ka soo dhameysay macallimiin hadii jiraan asxaabatiin ka soo dhameysay ku soo qoran even hadaysan time ay heenin ay ku qoran warqad adiga qoro then u geysoon saxiixoodii timbra jaamacadda lagu soo luftay enough halaasa ku filan so hadii inaad dirmo rabo aniga meeshana ugu dambeeyay formku waa buuxinay yani waxa way admissionka sidan waa processkiisa halahana buuxinaysa meesha u dambeeyay documentiska ah then CV-gi and passport-keena version statement-ga soo qorayna PDF aan soo dhigana inta gelinayna and upload education history copy of your official course transcripts from the school college or university waxa soo dhigatay dhan jaamacadii shahaadooyinkaaga dhan inta gelinaysa section-kan then upload evidence of English language waajib maahan midan hadii ay jirto shahaadooyin English haysti iska geli meeshani yani waajib maahan laakiin hadii ay haystid yani English shahaado buuxi iska geli yani problem ma upload reference haduu jiro ay haystid sidoo kale macal professorada ka soo qaatay geli muhiim way reference letter ina haystid marka hadda meesha waxa muhiim passport ka amal muhiim oo required personal statement iyo shahaadooyinkaaga laakiin upload reference muhiim way fadlan tan English kan iska daa marka CV gan sidoo kale inaa heshid isku day marka sida rajayna wax badan waa ka fahantay wax badan waxa way meesha xoog way kaaga bixin the documents marka dirtid continue ayaa leedahay continue hadda ma dhihi karo oo waxa way qaybtan wili tignoomsan intaana soo wada dhameena hadda waxa way tig aan wada saaran bidan bis upload supporting documents ka bis anaga dhiman marka hadaa haysto midaas buuxisid then complete waa diri kartaa formka marka inaa dir maraba meeshana ku ekeenayna sida rajayna videogani wuu ku caawin doona insha Allah adigana inaa waqti gelisid isku day jaamacadaha sidoo kale inaa wada buuxisid isku day jaamacada badan u dirso application badan dirso waxyaabo badan apply gareyso yani dadaalkeeda muuji yani energy badan kaaga baxo scholarship badan dada hele way buuxaan fadlan adigana dadkaas iyo adiga wax farqinay ma dhaxin marka inaa heshid isku day apply garey hal jaamacad laba jaamacad saddex jaamacad afar jaamacad ila 10 ha gaarin 10 except hadaa soo heshid aqbalaad scholarship kana u dirtid insha Allah waxaan rajaynayaa in yani wax badan iska yani wax badan ay ka caawin doonaan marka adiga apply garey system kan waa isku system jaamacadaha kale iyo jaamacadan system kooda waa isku mid wax kala magaabaan halahan waxa buuxinaysa wax noocan leh personal details kan waxa contactigan oo halaas wax kala ma soo ina buuxiso isku day fadlan insha Allah videogana laanu noo kan doona ilaa aan daa soo daawanayso videoga jazakumullahu khairan ilaahu ku sharfo sidaan wada sharfto dhan ilaahay waxaan ku rajaynayaa scholarship kani heshid insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.